ما أنت ورتيد إن أنا شيء ما في لا يعيد شيء أما أنا ميديا كشيء واحد كلين حقال كهانو وكبي جديدي وحنو يلا أنت مشرحة إنه كرّبنا أشدها ماذا هو موسى أنا أختي عشنا إن لقربوا كبي جديدي هالك إشتيدو هيا كل عضي شركنا بريبو فرمايا رنت هذا اللي هي شيء ندي شركنا مو فرمايا محمد كان بالحقيقة أنتوا دقاقي بالوايه وكاقبلay أنتوا دقاقي بالوايه شو ما لأن بدي بابا إمك dad badan shaki ka qabay inay sii jiri karto inay sii jiri karto sida dawladdan u socoto dib u socoto sidaan Soomaaliya soo jiray nidaamkeeda dawladnimo qaabka dawladdan wax u wado madaxweyne wax laga rabaa ummadda inuu waramo ummadda inuu soo baxo ummadda inuu wax u sheego ummadda inuu xog siiyo ma soconayso intii lagu xishoonayay la dhowrayay ictiraaf 2008 baan Axmed Silaanyo raacay Ergaabo Allahu naxariisto wadada Ergaabo kelmad ka yiri Ilaahu waxaad igu ogaatay daawada waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo ka qaadi doono Cabdikariin Axmed Maxamed oo hore u ahaa gudoomiyihii hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland sidoo kale ka tirsan guddiga fulinta iyo waliba xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye ugu horreyn gudoomiye soo dhaw waa adiga Diraan TV waa mahadsantihiin waan soo dhawaa ugu horreyn gudoomiye tan iyo intii doorashadu dhacday xisbigii mucaaradka ah ee kulmiye kaalintiisii mucaaradnimo ma qaadanayo wuxuu noqday laan ka tirsan xisbiga muxaafidka ee wadani oo doorkiisii mucaaradnimo u dayacay sida xisbiga ka hoo kale ma mucaaradayo dawladii arrimihii dawladda iyo mucaaradadii ma soo bandhigay bal maxaad ka oranayd ugu horreyn bismillaahir rahmaanir rahiim loomeeyay waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay su'aashaas jawaabteeda oo kooban waa dhab oo doorkii mucaaradnimada looga baahnaa maanaan ilaamka maanaan soo bandhigin maanaan qaadan sababna way iska jiraan manihin laakiin qayb ka mid ah wadani iyo laan ka mid ah iyo cid la shaqaysay manihin mana noqon doono laakiin doorkiina laga filayay mucaaradnimo maanaan qaadan waayo xisbigu sanadka iyo labada sanadood ee dhow oo mucaaradka ahaa howlo gudihiisa uu xalilanayay oo isaga dhexyaalay uu xalilayay boqolkiiba 90 way iska xalilmeen ilaahay baa mahadle marka sababtaasaan howlahayagan xalilanaynay baanaan mucaaradnimo chaanis aanan ugu helin laakiin hadda wixii ka dambeeya waanu qaadan doonaa doorkayga mucaaradnimo inkastoo mucaaradnimadana laga filayaa aanay ahayn dadka badankiisa uu garanaya tii wadani mucaaradda noocii wadani aanan dee tayadu aanay ahayn ay noqon doonto noocii hore ee kulmiye ee 2002 ilaa 2010 ay taa noqon doonto laakiin doorkayga waanu qaadan doonaa way waxay kugu eedeeyaan inaad budigu tahay ama aad mar walba sababto khilaafaadka xisbiga kulmiye gudihiisa adigoo sababta awoodeeda ka helaya aad waxa ku sameynayso in tallaabooyin aad qaado khilaaf abuuraya oo garab ka helaya gudoomiyaha xisbiga Maxamed Kaahin eedan noocaas maxaad ka oran lahayd waxaan jeclaan lahaa warkaas cidda aad ka maqasheen iyaga weydiiso maxaad ku cadeynaysaa tiraahdo midoo iska jirtaa qofka hadduu qof muuqdo yahay ama xisbi ka dhex muuqda ama dee arrimo siyaasadeed ka dhex muuqda nacabkiisa iyo colaadiisa way iska badataa marka waa laga yaabaa dad ama ashkhaas ama kooxaba kan iska dheh meeshay doonaan ka soo jeedaan xisbiga doonana ha noqdaan hadday doonaan kulmiyaba ha noqdaan dano ay lahaayeen oo u gaar ahaa oo ay doonayeen inay si u fushadaan aan dadka ku fahma inaan ka mid ahay dabeedna ay dee sababtaa daraaddeed ay u odhanayaan kelmadaha noocaasa marka arrintaas anigu xubin xisbigana waa ahay mas-uul xisbigana waa ahay sababaan u abuuraana ma jirto bal waxaan isku dayaa inaan xisbigaygu aanu isku dhex walaaqmin oo nidaamkiisa iyo kala dambeyntiisa la ilaaliyo ku shaqeeyo marka arrintaa waxba kama jiraan awood gaar ah oo gudoomiyaha xisbiga ka hesho aad ka agdhowday ma jirtaa weliga ma yeelan awood gaar ah ma yeelan dadka ka duwan oo dadka ila midka ka duwan awoodaha xisbigu xeerka xisbigu awoodaha uu kala cadeeyay
waxaa ugu awood badan waa shirweynaha xisbiga, waxaa ku xigana waa golaha dhexe awoodda labadii ku xigtaa, awoodda saddexaadna waa guddida fulinta, awoodda afraadna waxa weeyaan waa hoggaanka oo guddoomiyaha xisbiga, waaba awoodda ugu yar. markaa shaksi si uu awood u yeelan karo ma jiri karo gaari, laakiin waa laga yaabaa qofku inuu ama dareemo uu leeyahay ama wuxuu aaminsan yahay aanu qarsane uu sheego ama uu caddeeyo ama uu fikrad dee ay ku kala duwanaadaan dadka qaarkood looga dhigo cillad way wax iska dhici karaa. marka taasina macno weyn ay leedahay ma jirto. way waad mahadsan tahay. arrimaha xisbiga aan usoo noqda sida shirkii burco ee lagu doortay guddoomiye maxamed kaahin axmed, xogo waqtigaas soo baxay waxay sheegayeen in maxamed kaahin madaxweyne hore muuse biixi guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin uu kula ballansanaa in laysu raaciyo musharaxnimadii doorashadii 2024 dhacday oo kulmiye matalo iyo weliba guddoomiyaha xisbiga. xogtaas waxay sheegaysaa in muuse mar dambe uu ka noqday arrintayd inuu musharaxnimada kaahin ku wareejiyo. xogta noocaasa maxaa ka xaqiiqa mise maxaan ka xaqiiqayn oo maxamed kaahin uu go-aansaday inaanu buuqaasi dibadda usoo bixin? dadka labada odayba ka agdhowata. horta arrintan xog kama hayo, heshiiskoodana xog kama hayo, heshiiskoodana warma hayo. waxu gaar ah way jiri karaan. waa laba nin, waa laba oday oo saaxiibo ah oo muddo dheer saaxiib ahaa oo dadkoo dhan iskaga wada dhowaa. qof kastoo ay midkood isku dhow yihiin labadooda ba haddana iskaga sii dhowaa. marka waxyaalaha ay gaar uga wada hadleen inay jiraan inay jirin dee anigu taa ma garan karo oo odhan maayo way jirtay iyo ma jirtay midna ma odhanayo, taa iyagaa og. laakiin intaan ka ogahay shirka burco waxaan ogahay shirku wuxuu qabsoomayey 21kii 22kii iyo 23kii August 2023 haddaan daakiradeedu khiyaamayn. saasaan moodayey maalintii furmay 22kii bay ahayd. ajandaha shirka way jireen waxyaalo la isku diidanaa oo labada oday ay isku diidanaayeen oo aan odhan karo anaa sabab u ahaa inay heshiiyaan. waayo ajandaha shirka markaanu sameynaynay waxaanu ahayn guddoomiye xisbiga madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenkii markaasi xisbiga maxamed kaahin axmed, gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga axmed cabdi dheere iyo aniga. ajandaha xisbiga markaanu doonayno sameyno oo berrina shirka uu furmayo. markaanu soo diyaarinay waxaan ula nimi guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo afarteeda waanu isu nimi. ajandii markaanu sadgaraynay qodob baa ku jiray odhanaya musharaxa xisbiga waa in shirkan lagu doortaa. marka maxamed kaahin qodobkaa wuu ka biyo diiday. arrintan maanta horteed inaanan sheegin baan filaya cid u sheegin ama aan media ka sheegin. waxa keliya xogaal ka ahaa anigu. wuu ka biyo diiday. waxaanu yidhi arrintaa musharaxa aynu ka reebno ajandaha. madaxweyne muusena waktigaa isna in laga reebo ka biyo diiday. marka halkaa isdiido ayaa ka dhacday. shirkuna berri buu furmayaa. arrinta haddaan laga heshiina dee shirku nooma furmeen oo waa laga yaabaa dee khilaaf inuu dibadda usoo ama istiidyadaas khilaaf yaa istiidyadaas ama isla faham la-aantaas inay dibadda usoo bixi lahayd oo xubnaha golaha dhexe kalena ay saameyn lahayd baa laga yaabaa. marka arrintaas labada oday baan la hadlay. waxaanan runtii aan odhan karaa tanaasulkii maxamed kaahin baa shirka ku qabsoomay bilxaqiiqa. taasaan odhan karaa waayo dee marka arkay siday tahay labada odayna dee aan wax kala odhan karo, mid walbana aan ku dhiiran karo. xisbigeena shirkiisi inuu qabsamo lagama maarmaan ay tahay. isfahmi waagaa yarina inaanu dibadda u bixin lagama maarmaan ay tahay. waxaan soo jeediyey fikrad odhanaysa musharaxa iyo guddoomiyuhu waa shaar iyo surwaal. markaa mid waa mid gasho. waqti dheerna wuu hadhay oo sanadii siyaada doorashadii ka hadhay waxba isbedeli karaa. laakiin intaa ka horeysa mida waa mid gasho. maxamed kaahin bilxaqiiqa intuu dhaqaaqi buri waa yahay. wuu ka aqbalay intuu dhaqaaqi buri waa yahay. marka waxaan odhan karaa dee tanaasulka maxamed kaahin maalintaa isagaa lahaa. lakiin anigu wax horey ku heshiiyeen mana ogi.
mana odhanaya way jireen mana odhanaya ma jirin waayo laba nin oo iskaga keydho oo saaxiiba oo walaalaa oo dadka iska xiga ayaa daan u aqaanay anay ahaayeen marka waxyaalo isku qarsanayeen baa dee jiri karaa marka ma garanaya taanu gudoomiyood mahadsan tahaye maxaa taloo labada oday markaad la kulantay wixii xoogaad nala wadaagi kartoon baan ka hadlayaa muxuu mid walbaaba ku doorbidayay in midna musharaxa la raaciyo markaas midna dib loo dhigo waxaa jiray aan ma garanaya mid walba wuxuu ku sababeynaya mid walba damacyo hanuun bay ahayd mabdi'iyan markooda hore dee mid walba damacuu leeyahay ayay ahayd laakiin waxaa jira anigu tayda waxay u kalifuun baan kuu sheegaya aan idhi midowna kan qaado midowna kan qaado sidaan shaarkiis kulka u kala gashada waxay ahayd ururaa la furay urur cusub baa la furay ururaduna deegaanka madaxweyne muusena way ka furnaayeen deegaanka madaxweyne gudoomiye maxamedna way ka furnaayeen ururaduna waxay ka dhex furmeen oo kulmiyo bay ka wada dhex baxeen marka si aan ururadaasi jaanis u helin oo xisbigu jaaniskiisa aan u dayicin oo meesha aan uga bixin un baan anigu uga jeeday taasoo maan ka hadli karaya laakiin iyagu ujeedooyinka ay ka lahayn dee waa damacya un baan odhan karaya wax intaa ka badan ma odhan karaya waay deegaankii uu maxamed kaahin kasoo jeedo iyo deegaanka uu musabixi kasoo jeedo oo ama inta labadooda khilaafka ama doorashadii kadib ka dhex jiro waxa laleeyahay nidaamkii xulafaysiga siyaasadeed ka dhexeeyay ama jeegaantii wixii la odhanayay waxay u muuqataa mid sii baaba-aysa oo ay siyaasadda kusii kala fogaanayaan aragtida noocaasa maxaad ka odhanay ilama aha doorashadii dhoweyto ee u dambeysay deegaan waliba kulmiye cod waa siiyey ha kala badnaadaan deegaan walibana waa ka codeeyey ha kala badnaadaan laakiin ma filaya hadda in arrintaasi ay raad weyn ka tagtay gudoomiye maxamed kaahin axmed dad baa maalmihii ugu dambeeyey faafiyey warar ku saabsan maxamed kaahin xaalad caafimaada la soo daristay darteed ayaa rag ay isku deegaan yihiin la qorsheynayaa in uu musharaxnimada iyo weliba mas-uuliyadaha xisbiga ee saaran uu ku wareejiyo wararkaasi maxaa ka jira maxaad xog nooga sheegi kartaa miyay jirtaa si xaalad deg deg ah oo hadda kulmiye kusoo kordhay oo kalifaysa in maxamed kaahin uu wareejiyo mas-uuliyadihii xisbiga kulmiye u hayay marka warkaas waxaan dee anigu door bidi la horta marka hore waxaa laleeyahay baad leedahay miidiyaha dad soo dhigaya inaynu ogaano cidda tiri iyo meesha warkaa laga keenay horta inaynu ogaano markaasaan ka jawaabi karaya wax xogaad ka haysa ma jirtaa in gudoomiye xaalad caafimaad la soo daristay gudoomiyo haa xaaladda caafimaad dee way jirtaa laakiin sida loo buunbuuniyo sida loo weyneynayo ma aha arrimo caafimaad buu tegay imaaraadka u joogaa wararka aanu helayna ana waxay leeyihin 100% in lagu guuleystay wixii laga qabanayay caafimaadkiisa aad iyo aad u wanaagsan yahay soo noqon doono dhawaan insha allah maxamed kaahini soo noqon doono dhawaana waa wararkaanu helayna weeyaan arrintan kale adada wararkaasaa jira runtii tisaad u maqashuun baanu u maqlaynaa wax la diyaariyey iyo sabab loo diyaariyaana ma jirto way jirjiraan shirar aan daan maqlayno dad baa shirshirayana waa xanta dawan ku maqalaa laakiin waxaan isleeyahay uun dee faa'iido ka qaadi maayaan haddii arrintaasi jirtee waxaa laga shirshirayaan bilxaqiiqa boqol ma hayno laakiin xantaa idin soo gaarnun baa annagana soo ku jirto maanana soo gaaraysa marka waxba haysla goynin oo dee hayna la goynin oo hayna kaliifina inaynu arrimo aan jirin aynu macno u yeelo ayaan odhan lahaa qolyahan waxaan kula talin lahaa iyaga kula talin lahaa haddii ay jiraan iska nasta wax dhibaato ma jiraan kulliba goor ay noqotana dee maxamed xisbigan guddoomiyenimadiisa way ka wareegeysaa goor ay noqon doonto ilaahay baa og way ka wareegeysaa sida guddoomiyaal horeba uga wareegtay bay dee uga wareegeysaa markaana dee ciddii nasiib u yeelato unbaa guddoomiye noqon doonta ama la isla garto taasina wax dhibay leedahay lakiin inta ka horeysa wixii la galaaba waa degdeg iyo midho aan bislaan oo geedkeedii laga jarayo shiro socda cali mareexaan muraad xasan gafaadhi oo inaba aad wax ka maqashay ma jira maya nin aan waxba kama maqal nin waxba kama maqal way dee nowina waa hayo joogo waxaan kulliba xoogaal u noqon karo kulliba hadday jirto arrimaha noocaas cid dhaqdhaqaajinaysaa
dee waa xogteeda waan heli lahaa, ragga lagala tashadana dee waan ahaan lahaa, laakiin arrintaa waxba kama hadda anigu waxba kama odhanayo way jiraan, mana maqal. way aada wanaagsan tahay. habeenkii shirku dhacayay kulmiye waxaa la yidhi kaadhar baad qaybiseen, weliba xubno ka tirsan golaha dhexe kulmiye oo kaadharka qaatay baa sheegay yurub abiib oo kale. maxaa kalifay in habeenkii aada kaadha qaybsaan isagoo shirki beri dhacayo? arrintaa waxaan filayaa cidda wadda waa cidda caadun waddaa. kaadhaka waxaanu qaybintooda bilownay ilaa 400 iyo siyaado 500 oo dhow kaadh bay ahayn. qaybintooda waxaanu bilownay maalinta shirka maalintii ka horreysay ayaanu bilownay. waxaanaanu bilownay waqti hore u qaybin weynay, waxaanu ka ilaalinaynay in suuqa kaadha laga foojari gareeyo. marka dee ama yurub abiib ha noqoto ama qof kale ha noqote, qof walba waqti uu kusoo hagaago uun baa kaadhka la siinayay. laakiin maalintaas baanu bilownay iyo maalintii ka horreysay, labada maalmood baanu kaadh ka qaybinaynay. magaalada burco oo ka mid ah deegaanadii ballaadhan aad kasoo jeedo, madaxweyne kamuu qeybgelin jaamacaddii burco qalinjabinteedii, balse wasiir ayaa ka qeyb galay. maxaad ka odhanayd? reer burco badan saluug bay arrintaa ka muujiyeen oo madaxweynuhu ardayda jaamacadda burco la farxayba ay hayd bay idhaahdeen. maxaad ka odhanayd guddoomiye waftigaa wasiiradii tegey iyo arrintaa jaamacadda? horta waxaan filayaa madaxweyneyaashu laga soo bilaabo dowladihii madaxweyneyaashii doorashooyinka ku yimid laga soo bilaabo, madaxweyneyaashu waxay ka qeyb geli jireen doorashooyinka qalinjabinta jaamacadaha dowladdu gacanta ku hayso, bowrame, ta burco, ta hargeysa iyo ta berbera. taceergabo badana may gaari jirin, inta way ka qeyb geli jireen. khasabna ma ahayn dee inay ka qeyb galaan, khasab maaha, laakiin waxay kaga qeyb geli jireen iyagoo uga faa'iideysanaya ardaydana inay soo dhiirigeliyaan, gobolladana ay u noqoto inay soo mareen oo kormeer bay labada uga faa'iideysan jireen. madaxweyne muutagan waa dhab, laakiin de waxaynu eegi doonaa arrinta wax ka odhan doonaa jaamacadaha gobollada kale markuu tago burcana uu tegi waayo, marka waxbaa laga odhan doonaa. haddii laakiin kuwa kale aanu tegin, dee sabab burco keliya loo soo qaato markaa ma garanayo. hadduuse kuwa kale tago, cid walba way ka hadli doontaa, sababtana waa la weydiin doonaa. taasi waa qodob. qodobka kale de wasiiraha tago waa dhab. wasiiradu de way madaxweynaha ayaa de u wakiilan karaa hawl u diran karaa, de waa suuragal isagu inuu dirtay. hal sano iyo dheeraad xukuumadda xisbiga wadani hayso, bal suure xaaladda dalka iyo weliba isbedelka somaliland ka dhacay saad u aragto? somaliland isbedel wuu ka dhacay, shay kuma jiro. dadkuna isbedel buu doonayay, laakiin isbedelkuu ka dhacay wuxuu noqday isbedel dambaska cad lagu noqday. dowladnimadii baa ku saqiirtay, dhaqaalii baa ku saqiiray, dhinac nolosha laga eego maanta aan hoos u dhicin oo aanay galaafan dowladdaa jirtaa ma jirto, aanay baabi'in. tusaale, waxaad og tahay shidaalka ka soo qaata maalintii xukuumaddaas xilka la wareegtay litirka batroolka 8 kun buu marayay, 16 kun buu maanta maraya. sabab lagama jawaabin. maciishatii daruuriga ahayd halkay marayso waad og tahay. amnigii kama soo raynin. xisbiga wadani waxyaaluhu ku ololeynayay baa waxaa ka mid ahaa ugu weynaa inay isbedel samaynayaan oo wax kastoo ay yidhahdeen kulmiyay ka xumaatay ama xumeeyey inay iyagu bedeli doonaan. lagama rabin maanta inay yidhahdaan kulmiyaba taasuu samayn jiray, waxay iyagu inay bedelaan bay ahayd. iyagu inay bedelaan ayay ahayd. meel inoo bed qabtaa, anigu bed qabtaa maanta ma jirto. masalan ta kale ugu sii daranay waxa weeyaan ee xukuumad la mid oo weli aan arag, madaxweynuhu 9 safar buu dibadda ugu baxay. 2 sanad iyo 8 bilood gudahood 9 safar buu dibadda ugu baxay. markaad qaybiso 2 biloodba waa safar. weli madaxweynahaasi isagoo ummaddiisa la hadlay wuxuu sheegaya maynaan arag. isagoo safarka uga warramaya maynaan arag. isagoo waxa u baxaya ka warramaya marka hore maynaan arag. madaxweyneyaashu waa xaq lagu leeyahay ummaddii dooratay inay u warramaan waxay u baxayaan, waddanka uga baxayaan iyo waxay la soo noqdeen, labadaba inay uga warramaan waa wax laga marmar ummaddu xaq u leedahay. waxaaba iminka dee ka daran
madaxweynuhu xataa waqtigu baxayo lama ogaado, waqtigu imanayana lama ogaado, inuu joogo inuu maqan yahay ummaddu maba kala ogaa. intuu dambayso dhan madaxweynuhu inuu xataa waddanka joogo inuu ka maqan yahay cid kale ogi waa cid aada u kooban. madaxweyne waxa laga rabaa ummadda inuu warramo, ummadda inuu usoo baxo, ummadda inuu wax u sheego, ummadda inuu xog siiyo. ma soconayso intii lagu xishoonayey la dhowrayey ictiraaf way dhaaftay. 26 December 2025 baa aqoonsigii horreysay Soomaaliya lagu dhawaaqay. 8 bilood wax alaale wax isbedelay, nolosha ummadda iska bedelay, ictiraafkaasi uu bedelay, wax soo raacay rajo la qabo midna ma jirto. way dhaaftay waqtigii lagu ixtiraamayay madaxweynaha arrinta ictiraafka way dhaaftay. si xaqiiqo dhababa daymanka wax walba looga hadli doonaa. kaaga daran wasiiraha tegey maalin dhowto gobollada bariga inay soo noqdeen ma hubo. waxay u eg tahay wasiiradu qaarkood inaanay fahamsanayn xilka ay hayaan, inay u hayaan reerkooda ayay u haystaan, uma hayaan inay u hayaan xukuumadda. wasiir baa tegey, wasiiraha tegey, wasiir ka mid a ayaa wuxuu yidhi waxaan la saaxiibi doonaa boodhanka udweyne boodhanka salaxley in la saaxiibi doonaa. marka arrintaasi dee waxay sameynaysaa dhadhan bay sameynaysaa. labada boodhan iyo kuwo kaleba in wax loo qabto oo la horumariyo waa laga maarmaan, waana waxyaalaha dowladaha loo doorto, dadku dowladda u doorto. laakiin intaasoo boodhan oo jira inuu gooni u soo qaato laba boodhan weliba isaga lagu xamanayo ama lagu tumayo, isagay nuqsaan ku tahay. qodobka kale waa kuma wasiirkaas, waa wasiirka madaxtooyada. qodobka kale wuxuu u hadlay sidii isagu madaxweyne u dalka ka yahay. kelmadii madaxweynuhu isticmaali lahaa ayuu isagu isticmaalay oo ah waddadaa oodweyne aniga oo infact alfaadii kelmaduhu hi ma saxayo ku dambaabi maayo, laakiin macnaheedu ahaa magacayga ayaan ku suntin doonaa waddada oodweyne. madaxweyne waddada oodweyne waa waddada ummaddu jeelka u qabtay, oonka u qabtay u baahan tahay, loona baahanya madaxweyne ciro 5 sanadood waxawayu qabanay. waddada oodweyne hadduu ummadda uga tago oo dhiso oo wuxuun ka qabto xataa jidcadda ka dhigo, wax ummadoo dhan u danabay noqon doontaa oo lagu mahadiyay noqon doontaa. laakiin macnaheedu ma aha nin wasiir inuu yidhaahdo anaa isku suntaya. kuma suntana waddada Ceergaabo madaxweyne Axmed Maxamed Silaaya ku suntan. waa laga yaabaa inay jiraan maqli jiray rag yidhaahda hebel baa dhisay annagaa dhisnay. anigu 2008 baan Axmed Silaaya waxaa Ceergaabo taariikhdan ku suntanaan doona malaasaas u yidhi. waa isku mid taariikhdan ku suntanaan doonaa, kuma suntanaan madaxweynaha ku suntanaan haddii la dhiso. 2008 baan Axmed Silaaya u raacay Ceergaabo, allah u naxariisto. waddada Ceergaabo kelmad ka yidhi ilaahu waxaad igu ogaatay buri China aan ugu baryo tagay waddada inaan dhiso haddaan meesha imaado. uu kaga dhameeyey waa xil madaxweynaha saaran. waxqabadka wasiirku waxqabadka madaxweynaha tahay inuu noqdo, laakiin ma aha in waxqabadka madaxweynuhu waxqabadka wasiirka noqdo. in wasiirku sheegto wixii madaxweynaha laga rabay yidhaahdo waan ku suntanaan doonaa waxa weeyaan waa aqoon darro iyo ducfi weeye, liidasho iyo madaxweyne meel lagaga dhacayo. madaxweynaha wasiiradiisa nidaamka dowladnimo ha baro, waxa uu sheego. waad arkaysi horta wasiir waa wasiir, wasiir waa wasiir, waa la wada ansixiyaa, waa la wada dhaariyaa, waa isku bishahaaro, waa isku brotocool, waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan. wasaaradaha qaar ba dastuuriya, laakiin wasiirkan ka hadlaya. wasiir tabtii madaxweynaha u soconaya oo ciidanku watay intuu laka ad arkaysay, wasiir u soconaya ad arkaysay. waxa weeyaan waa waxyaalaha dowladnimadana meel ka dhaca kuwaabay ka mid tahay. laakiin ciidan kuwii madaxtooyada ahayn soo intuu doono ma kaxaysan karo inta wasiirku leeyihin buu leeyahy. oo imsuu leeyahy wallahi anigu de hadda taas intuu leeyahy ma garanaye. waxaa wasiirka de ugu badan ee amniga qaabilsan wasiirka arrimaha gudaha. wasiirkaasi wuxuu kaxaysan karaa ciidanka booliska, intuu doono ka kaxaysan karaa. way arrimo amni buu had iyo jeer gacanta isagoo kula jira. laakiin wasiir kale dee askarigiisa bodyguardka uma kaxaysan karaa.
muxuu isku ogyahay 15 askari uga baahan yahay uga maxay waa waxyaalaha khaladaadka iyo nidaam xumada jirta way ka mid waay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdikariin axmed maxamed xinif mudane guddoomiye gabagabada wareysiga wax fariin ah oo aad ku darsaa ma jirta ma waxba ku dari maayo fariinta dayta aan u baahdo dowladda dadkii dowladda wuu la-yahay dadkii dowladdu doortay wuu la-yahay isbedelkiina wuu la-yahay somalilandnimadii baaba iminka dad badan shaki ka qabay inay sii jiri karto inay sii jiri karin sida dowladdana u socoto hadday kusii socoto sidaan somaliland sii jireen nidaamkeedii dowladnimo qaabka dowladdani wax u wado yaa isku furtay ummaddii ee hay-adihii halkan ay ka shaqeynaya wadaadkiisii wasiiro xamara oo ama maamulayaasha xamar maamulka xamar ka jira oo mashaariic u saxiixaya somaliland in laga fuliyo hargeysa gudaheeda laga fuliyo waay haddii dadka ay mashaariicdaasi horumar gudaha uga sameynayaan maxaa ku jiban gudoomiye okay haa waa ogol lahay diyaar baynu nahay laakiin way somaliland fulisaa wayna somaliland fulisaa ma aha inay